Soomaalida ogaadeenaya ee dalka Canada Yusuf Ismaaciil Haaji ila soo dhaweeya kadibna Yusuf wuxuu soo dhaweyn doonaa haddii Allah uu ogolaado gudoomiye ku-xigeenka jihada wadaniga xoreynta ogaadeenaya Dr. Maxamed Ismaaciil Umar Yusuf. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا لكن كسلام يا ضمان تدويرها شرفت له. كسو قيد قلي شركا أي نسق مقابلين شاليدا سوماليدا أوغادينيا مقالة تورنتو يقول لك عشان يا ضمان شاليدا كله قبل كا Ontario. waxaan si gaar ah u salaamayaa ururada haweenka ururada dhalinyarada waayeelka indheergaradka odayaasha abwaanada xubnaha caadiga ah kaadirka iyo dhammaan qaybaha kale ee ay jaaliyadu ka kooban tahay intaa kadib waxaan jeclaan lahaa inaan wax yar u soo jeediyo mahadnaq inta aan sheegay ee ururada ay ka kooban tahay bulshadu oo muddo dheer halganka soo daadihinayay soo waday ilaa iyo maanta meesha aanu fadhiyada soo gaarsiiyey ayaanu mahadnaqayaa waxaan ogahay in ay u horeen waqti badan waqtiga oo ah waxyaalaha ugu importansan ama ugu muhiimsan ee qofka bini aadamka uu leeyahay oo ay kaga soo qayb galayeen shirarka oo ay kaga soo qayb galayeen barnaamijyada oo ay kaga soo qayb galayeen abaabul kasta oo looga baahdo halganku u baahan yahay muddadii aynu halganka ku soo jirnay waxa kale oo ay qayb libaax ka soo qaateen ilaa haddana ay qayb libaax ka qaataan insha Allah kana qaadan doonaan fiisha soo socda dhaqaalaha oo halganku ku socdo oo qayb libaax ka qaataan waxaynu ognahay dhaqaaluhu inuu yahay lafdhabarta halganka dhaqaaluhu inuu yahay lafdhabarta shaqo kasta oo adduunka ka socota shaqaan dhaqaale lahayn ma socoto waa fiyuul shidaalka gaadhigu ka socdo hadduu gaadhigu shidaal